dulmar kooban oo ku saabsan sharciyadkii afraad ee sanadlaha ah ee siyaasadda dhaqaalaha uu soo qaban qaabiyay Bangiga Dhexe waxyaabihii lagu soo bandhigay. Shirka wuxuu diiradda saaray xaaladda dhaqaale ee Soomaaliya, xasiloonida nidaamka maaliyadeed, iyo saameynta ay ku yeelan karto hoos u dhaca gargaarka dibadda. Mid ka mid ah qodobada ugu muhiimsanaa ee shirka lagu soo bandhigay waxaa ka mid ahaa in bangiyada Soomaaliyeed ay sameeyeen kobac wanaagsan iyadoo ay gaartay hantida bangiyada ay hayaan 2.3 bilyan. sidoo kale macaamiisha lacagaha ay deposit garaystaanna waxay gaartay 1.9 bilyan oo dollar. Bangiyadu waxay sameeyeen adkeysi wanaagsan iyagoo heerarka raasumaalka iyo liquidity-ga ay ka saramareen heerarka ugu yar ee u dejiyay Bangiga Dhexe. Laakiin warbixinta waxay sidoo kale iftiimisay caqabado muhiim ah. 86% hantida bangiyada waxaa gacanta ku haya 5 bangi, halka 74% maalgelinta ay ku urursan tahay ganacsiyada, dhismaha iyo hantida maguurtada ah. Tani waxay muujinaysaa in loo baahan yahay in maalgelinta loo balaariyo qaybaha wax soo saarka sida beeraha, kalluumeysiga, warshadaha iyo ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexe. Sidoo kale warbixinadii meesha lagu soo bandhigayay waxay diiradda saartay in Soomaaliya financial inclusion-keeda uu aad u sareeyo iyadoo ay jiraan 11.6 milyan oo mobile money accounts ah iyo transactionada ka dhacay oo gaaraya 13.3 bilyan oo transaction. taasina waxay caddeyn u tahay adeegga maaliyadeed ee mobilka in ay laf-dhabar u tahay nidaamka maaliyadeed ee dalka. Sidoo kale waxaa la soo bandhigay deymaha gaarka loo leeyahay in uu yahay 4.7 marka loo fiiriyo GDP-ga ee dalalka Bariga Afrika, halkaasoo aan ku jirnay kaalimaha ugu hooseeya kaliya waxaa naga hooseysay dalka Suudaan, taasoo caddeynaysa in loo baahan yahay in bangiyada ay kordhiyaan maalgelinta. Sidoo kale waxaa aad loogu dooday saameynta hoos u dhaca ee gargaarka dibadda. Kaliya saameyn kuma yeelan doono miisaaniyadda dowladda, wuxuu saameyn doonaa liquidity-ga bangiyada, ganacsiga, lacag bixinada iyo amaahda lacagaha. Guud ahaan nidaamka maaliyadeed ee Soomaaliya in uu yahay mid sii kobcaya oo adkeysi leh. Si loo gaaro kobac waara waxaa laga maarmaan ah in la xoojiyo kormeerka bangiyada, in la balaariyo maalgelinta qaybaha wax soo saarka leh, iyo in la yareeyo ku tiirsanaanta ilaha dhaqaale ee dibadda ka yimaada.